xuska 75 sano guuradii ka soo wareegtay xilliga la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo iyadoo ay ka soo qayb galeen saraakiisha ciidanka booliska Galmudug maamulka gobolka kan degmada Gaalkacyo ciidanka booliska Galmudug ayaa munaasabada soo bandhigay gaata ka ciyaar aad u soo jiitay bulshadii ka soo qayb gashay munaasabada ciidanka booliska Soomaaliyeed qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Galmudug ee Gaalkacyo ayaa ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen ciidanka booliska Galmudug sanad guuradii 75aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sidaad ogtihiin booliska Soomaaliyeed waxa la aasaasay 1943 maantay oo ay tahay 2018 waxa ka soo wareegtay 75 sano marka waxaan u dabaaldegaynaa oo maanta farxadayda ay tahay xilligii ciidanka booliska Soomaaliyeed la abuuray oo 75 jirsaday waxaan halkan uga hambalyeeynaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliye ku-xigeenada saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableydaba iyo xaasaskooda iyo caruurtooda waxaan leenahay nagula ciida 75 guuradii ciidanka booliska Soomaaliyeed Colonel Abdijaamac Abdulle Xabeeb taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Galmudug ayaa dardaarno u jeediyay ciidanka booliska Galmudug sidoo kalena wuxuu hambalyo u diray dhammaan saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan in leedahay saaxiibayaal dhammaan booliska Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda alifleyda xaasaskooda dhammaan waxaan Ilaahay uga baryayaa sanadka ku xiga inay ku gaaraan eed iyo barwaaqo iyo bashbash ammaanka gobolkan iyo ammaanka dalka Kanadinka xilli ka saaran yahay saraakiil xigeen dabley dhammaan inta calaamadan sidata ayaa mas'uuliyadu saaran tahay waxaan ka codsanayaa wadankan amnigiisa inaad sugtaan inaad amniga gacanta ku dhigtaan xaafadaha iyo degmooyinka iyo gobolkana waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan booliska la shaqeeyo ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ee Galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug Cabdullaahi Warsame ayaa dhankooda si wada jir ugu hambalyeeyeen sanad guurada ciidanka booliska Soomaaliyeed farxadno amaanta inaan kala soo qayb galno sanad guuradii 75aad oo ay dhigayaan ciidankii booliska Soomaaliyeed qaybta gobolka Mudug ee Galmudug aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan idinku hambalyeeynaa sanad guuradiina guul baan idin rajaynaynaa waan ognahay xilliga lagu jiro oo adag iyo duruufaad ku shaqeysaan waxaan u hambalyeeynaa oo aan iskugu meesha saraakiisha qaranka Soomaaliyeed ee booliska ah sanad guuradoodii 75 jirsatay kuwaas oo loo yaqaan saaxiibka dhow ee ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo loo yaqaan lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo aan ognahay waxa ay ka maray qaranka Soomaaliyeed ilaa iyo 70 sano Safiina Daarshire SBC Gaalkacyo